بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaada macme jaanis kale maanta waxaan idin haynaa guri weyn oo iib ah oo ku yaala Hargeysa, gaar ahaan xaafadda Jigjiga Yar, garoonka baxsana waqooyigiisa. Gurigani waa guri aad runtii u qurux badan, barkadii iyo halkii lagu dabaalanayay iyo beertiibana maasha Allah tabaaraka Allah. Gudaha ayaynu guriga geli, beerta iyo qaybta lagu dabaalanayo iyo wax xaba weynu eegi. Baarkin weyn buu leeyahay, 2 balood buu gurigani ka dhisan yahay, 36 mitir iyo 24 mitir, oo welibana qayb barxado weyn leh ayuu gurigani leeyahay. Waa idinka arkaya barkadii biyaha insha allahu tacaala oo ilaa 150 foosta qaada, iyo halkii lagu dabaalanayeyba gurigani wuu leeyahay. Halkaa qolkaasu waa qol lagu nasto. Gurigani waa 5 jiif iyo fadhigii cuntadii, iyo 2 qol oo service, qol service oo caadi ah, iyo qolka halkaa aan idin tusi doono insha allahu tacaala. Markii beerta qofku beerta uu ayaal areadan uu iska fadhiyo, qolkaasu fadhiisanayaa, muraayaddaa leh, wuxuu soo xidhanaya qolka markay dhaxani jirto kale, halkaasuu ka daawanaya insha allahu tacaala beertan iyo nidaamkan. waay soo dhawaada macme, waa idinka arkaya waa taa barkadii biyuhu, halkaasna halkii lagu dabaalanayay, halkaana biyo yar baa ka dhaca maasha Allah tabaaraka Allah. Qolku waa kan, qolka la fadhiisanayo, qolkaasa la fadhiisanayaa, kadib beertaas iyo quruxdaasa la daawanaya. soo dhawaada macme, waa guri runtii aad u qurux badan. gebigiisa waxaa la siinaya 220 kun oo keliya. ka faa'iidaysta macmil guriga.